رئيس الوزراء حمزة عبد برre markuu yiri magaalada Laascaanood xarunta SSC qaatumo ayaan booqanayaa isaga meel walba joogan murugo ayaa u shidan bal ila arag xildhibaanad gobsan oo dhabanada haysata murugaysan khudbadii ra'iisul wasaaraha kadib baraha bulshada gaar ahaan Twitterka dood adag ayaa ka socoto oo ay iyagoo idil ay ku riyoonayaan in xitaa ay maamulaan hawada Soomaaliya midba wuxuu leeyahay haddii aan anigu ahaan lahaa Cabdiraxmaan Cirro hawada ayaan xiri lahaa diyaaradii baan ka hortagi lahaa wax walbaan samayn lahaa tuutan xiran lahaa bal aqligu inta uu ka gaarsiisan yahay ila arag inay Soomaaliya ay inaga dhigto waxaan jirin oo inay soo dhex istaagto oo ay dhulkeena iyo dadkeena sheegato waxaan u malaynayaa arrintaas Cabdicasiisow inay tahay unforgiven waxaan la aqbali karin oo la qaadan karin oo aan sinaba sidoo kale galabta magaalada Burco xaalkeedu aad ayuu uga duwanaa maalmihii la soo dhaafay kadib markii ra'iisul wasaaruhu uu qudbeeyay xaaladii Burco waxay noqotay galeysaan ra'iisul wasaare Xamza meel xun ayuu ka toogtay reerkii kulanti wanaagsan daawadayaal mar kale ku soo dhawaada Facebook page-kayga Cabdullaahi Balwaan waa page aad kala socon karto barnaamijyadayda رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبد برre فرصة aad u qaali ah ayaa hortaala waxaan kula talin lahaa inuu fursadan ka faa'iideysto waxaan kula talin lahaa inuu ka dhabeeyo ballantii ahayd inuu booqan doono magaalada Laascaanood sumcad weyn ayaa ra'iisul wasaaraha ugu jira taasoo ay ka faa'iideysan waayeen siyaasiyiin kala duwan oo ra'iisul wasaareyaal u badan oo qaarkood ka soo jeeda dhulka hadda ee Laascaanooda oo ay ra'iisul wasaaruhu uu ku sii jeedo isla markaana dhiigga shacabka lagu xoreeyay فرصة رئيس الوزراء حمزة عبد برre hortaala waxa ka faa'iideysan waayay Cabdiwali Gaas waxa ka faa'iideysan waayay Umar Abdirashiid Cali Sharmarke waxa ka faa'iideysan waayay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo maantana fursadu waxay hortaala ra'iisul wasaaraha ka dhabe waa qiyaasi kara culeysyo badan baa ku saaran culeyska ugu horeeya waa Xasan Sheekh Maxamuud oo hadduu doono intuu isbedelo ka hor istaagi kara safarkaaga Laascaanood waxaa dhici karta in xildhibaanada kuwa Muqdisho jooga ee dir intay isbahaystaan inay ku hor dhigaan culeysyo adag laakiin imtixaankan waa mid aad u adag waana qiyaasi karaa culeyska aad ku jirto laakiin imtixaankan waxaan leeyahay ra'iisul wasaare guntiga dhiisha isaga dhig waxaana ka rajaynayaa inaad guulaysato oo aad ka gudubto dhammaan isbaaro kasta oo loo dhigto inaad aado magaalada Laascaanood taasi waa fariin aan ra'iisul wasaaraha ugu talagalay khudbadii ra'iisul wasaaraha kadib xaaladii waa isbedeshay raggii Isaaq iyo dumarkii waaliya qarka loo saaray yahay waxaan arkayay gabadhii xildhibaanad gobsan ahayd oo fakirsan oo dhabanada haysata xaaladdu kuma eka dood adag oo Twitterka ka socotay ayaan soo dhageystay doodaasi xiisaheeda tan iigu yaabka badneed bay ahaydee ileen iyaga maskaxdooda waxaba ku jirtaba inuu Cabdiraxmaan Cirro hawada Soomaaliya maamulo waxay ku leeyihiin diyaaradii hawada soo gasha oo hawada Somaliland agteeda soo saarta waxaynu kala noqonaynaa aqoonsiga dhulkaynu soo dhigaynaa Cabdiraxmaan Cirro waxaan kula talinayaa inuu tuutaha xirto inuu dagaalamo maba ogaba xaalku meesha uu ka jiro iyo marxaladda iyo waliba awoodda dawladda dhexe ee federaalka Soomaaliya qofka meesha booqanayo inuu yahay ra'iisul wasaarihii qaranka Soomaaliyeed maba ogaba bal fikirkooda intuu u eg yahay ila dhageyso wax weeyaan u baahan tahay cid soo qaata inay Soomaaliya ay inaga dhigto waxaan jirin oo inay soo dhex istaagto oo ay dhulkeena iyo dadkeena sheegato waxaan u malaynayaa arrintaas Cabdicasiisow inay tahay unforgiven waxaan la aqbali karin oo la qaadan karin oo aan sinaba ay tahay inay u suurto gasho anugu haddaan maanta ahay the president of Somaliland diyaaradana waan xidhi lahaa socodkana waan joojin lahaa tuutana waan xidhan lahaa dalkana sida foor baan gelin lahaa wax arrintaa ka sokaysto Somaliland ay maanta ku badbaadaysaa sinaba uma jirto haddaad isleedihiin ama ay dadka qaar isleeyihiin waraaq la qoro iyo Maraykan baa ina ixtiraafi doona iyo dawlad baa inoo soo no adduunku wuxuu ku eegayaa halka aad taagan tahay iyo talaabada aad qaado iyo wax weeyaan waxa la yiri qof waliba halku ku istaago ayaa loo istaagaa cidina ku badbaadin mayso dalkaaga cidina ku xorow Xamse intuu dhex soo goorlaya this is my country bahanta reerka sidan ha u gelinina warar bahanta reerka yaan sidan loo gelin ra'iisul wasaaraha Laascaanood markuu tago ayay sheekadu inta ka sii kululaa doontaa marnaba la isma lahayn ra'iisul wasaaruhu uu ku dhawaaqi doonaa inta badan waxa loo haystay maalmihii la soo dhaafay inay tahay iska war suuqeed aan baraha bulshada dhaafsiisanayn laakiin ra'iisul wasaaruhu mar alle markuu ku dhawaaqay meel kastaba gubicii baa gaaray
xaaladdu waxay maraysaa meeshii ugu adkayd magaaladii burco ahayd orod ayaa ka bilowday waanu dagaalamaynaa weerar baynu qaadaynaa laascanoodaan ka hor istaagaynaa ra-iisul wasaaruhu laascanood waa tegaya insha allah kolley hadda waxaa la ii sheegay bartamaha bishan inuu tegi doono waxbaa isbedeli kara laakiin anigu ilaa 13 14 ilaa 15 la ii sheegay waxaa laga yaabaa dowladdu inay kasoo suka mariso waxaa laga yaabaa kadib in laga dhigo waqti walba loo bedeli karaa ra-iisul wasaaraha laakiin laascanood markuu tago waxaa u qorshaysan inuu booqdo xabsiyada ay ku xiran yihiin maxaabiista somaliland waxaa loo tegi doonaa faysal cabdi bootaan ragga godadka ku jira ra-iisul wasaaraha waa loo geynayaa waxaa kaloo la booqan doonaa goobihii taariikhiga ahaa sida xeradii goojcadde waxaa la tegi doonaa halkii xasuuqa uu ka dhacay oo ay ciidanka somaliland ku xasuuqeen dad shacaba oo bermageyda ah ra-iisul wasaaruhu uu booqan doonaa wuxuu ra-iisul wasaaruhu tegi doonaa sidoo kale goobaha taariikhiga ah oo taallada ay ka mid tahay wiilkii yaraa ee geesiga ahaa ee SSC qaatumo taallada dee uu sawirkiisu saaran yahay uu tegi doonaa meel kasta ra-iisul wasaaruhu cagta ayuu saari doonaa arrinta cajaa'ib kale ayaa noqon doonta maalinta ra-iisul wasaaruhu laascanood uu tago xaaladdu inay noqon doonto mid ka culus xilligan mana jiri doono wax la yidhaahdo gool isku taag dambe oo lagu riyo doona ma jiro gool isku taaggii waa soo dhammaaday waxaa la joogaa waqtigii ugu dambeeyey tegitaanka ciidda laascanood ra-iisul wasaare xamza wuxuu noqon doonaa ra-iisul wasaarihii soo afjaray gool isku taag taariikh culus ayuuna ra-iisul wasaaruhu heli doonaa fursadda ra-iisul wasaare xamza hadda hortaalla sooma marin siyaasiyiintii daarood oo dhan madaxweyneyaal baa hadda ciil farta qaniinaya ra-iisul wasaareyaal hore ayaa farta qaniinaya cabdiweli gaasaa ka mid a cumar cabdirashiid baa ka mid a madaxweynihii hore maxamed cabdullaahi farmaajo ka mid a rag badan baa fursaddan inay ka faa'iidaystaan mudnayd oo ay dadkaasi garab istaagaan maantase waa iska taariikh iyo nasiibe ilaahay wuxuu qadaray ra-iisul wasaare xamse cabdi barre inuu noqdo haldoorkii maanta soo jari lahaa soo dhammaystiri lahaa gooni isku taag dambe oo soomaaliya ama geyigeeda ka dhaca waxaan rajaynayaa tan inay guul ku dhammaato hadduu alla idmo waxaa kaloo xusid mudan waxaa iska jira qoladee ilaahay xaalkooda og yahay oo isku dayaya inay warxumatashiil ka bixiyaan oo ay ra-iisul wasaaraha socdaalkiisa si kale u dhigaan oo inta badan baraha bulshada isticmaala anigu waan usoo koobayaa waxay ku leeyihin ra-iisul wasaaruhu jubbalandna laga soo doortay muxuu jubbaland wax ugu qabo waayey muxuu deegaanada jubbaland oo dhibaata ay haysato ugu gurman la-yahay maxaa SSC ka galay aqligaagu markuu liito ama uu fooraro waa dhib inteeda le baro ra-iisul wasaare xamse cabdi barre wuxuu ra-iisul wasaare u yahay dhulka daarood meel walba oo dhulkaasi uu ku yaallo sida dhulka SSC dhulka puntland dhulka hadduu alla ku idmaayo jubbaland iyo qayb ka mid ah daaroodka degan galmudug intaas horta inaad ogaataa muhiima inuu laascanood tagana boqolkiiba 99 dhulka kale ee daarood waa ka taariikh culus tahay hadda waa iskoor ra-iisul wasaaruhu inuu garawa tago ama kismaayo tago ama galbahaarey tago ama cabud waaq tago waxaa ka sharaf badan inuu laascanood tago maxaa yeelay waa iskoor innaba aan caadi ahayn wuxuu noqonayaa siyaasigii daarood ee saddexaad ee laascanood taga cabdirashiid cali sharmaarke maxamed siyaad barre iyo ra-iisul wasaare xamse cabdi barre cajaa'ib xusuusnow haddii lagu warxuma beeneeyey oo si qaldan hadal lagugu sheegay cabdirashiid cali sharmaarke laascanood waa lagu dilay yes laakiin qof dhulbaahantaa ma dilay intaas ayaan ku ekeynayaa waxaan sugnaba waa safarka ra-iisul wasaaraha iyo wixii kusoo kordha isha ku hay facebookayga pageka cabdullaahi balwaan oo aad kala socon karto macluumaadyada ugu dambeeya nabadgelyo